Gudida Qaban-qaabada oo warbixin ina siisa jaamac saalax ayaa warbixintaas ina siinaya. jaamac ku soo dhawaa mikrofoonka. halla fadhiisto jaamac in yeerso dadku waa kaa fadhiisto. raadiyo baa socday baktiya. jaamac mikrofoon ku dhow. shir guddoonka guddoomiyaha ururka ergeyda shirweynaha ka soo qayb gashay iyo goobjoogayaasha giddigiin waa salaamantihiin. hawsha guddida qabanqaabada ee shirweynaha lixaad ee dhaqdhaqaaqa waddaniga Soomaaliyeed SNM waxay soo socotay muddo qiyaastii 3 bilood iyo nus. dadka qaar ayay la noqon kartaa in ay tahay muddo ku filan hawsha ay ahayd in guddidu ay qabato. dareenkaa isagay sax ayuu noqon karaa marka dhinac keliya laga fiirsho. yacni marka muddadan iyada ah ee adag ee ku xayndaaban gudashada hawshan iyada ah, markii dhinac kasta laga eegay awoodaha aan badnayn ama buurnayn ee ururka, waxa u soo baxay in ay kaaf iyo kala dheeri yihiin oo aanay sinaba isu lahayn muddada la haysto iyo hawsha ay tahay in la guto oo weliba sida ugu quman loo guto. waana laba shay oo aan islahayn marka uu qofku hawl iyada ah ku dhex jiro iyo marka uu bannaanka ka joogo. dareenka iyo aragtidan iyada ah ee guddida u soo baxay waxa uu aasaaskeeda ugu weyn yahay 3 amuurood oo ay la timid marxaladda cusub ee halganka ururka iyo ummaddu keeneen, amaba qaarkood ay ahayd in laga sii gaashaanto kuwaasi oo kale ah. kow, in ay si aad u weyn isu beddeleen duruufihii siyaasadeed, kuwii ciidan ahaaneed iyo xitaa kuwii juqraafi ahaaneed ee ku aadanaa qabashadii shirweynihii kan ka horreeyey amaba xitaa waayihii taagnaa bisheedii 1988. 2, in awoodihii dhaqaale ahaaneed iyo maamul ahaaneed ee ururku inkasta oo aan la odhan karin hoos ayay u dhaceen, haddana ay kala badatay baahidii marxaladdu oo ay hafisay. in aan si fiican looga sii gaashaaman mas'uuliyadaha iyo imtixaanada culus ee si dabeeci ah uga soo bixi karay kana soo baxay gudagalkii iyo weeraradii ballaadhnaa ee ciidanka xoraynta ururku qaadeen bishii May 1988. marka la fiirsho hawlihii qabanqaabooyinkii iyo qabashadii shirweynayaashii hore
wax alla wixii hawl fududayna waa layna siin jira haddii ay tahay meesha lagu shiraayo meesha loo hoyanaayo wax alla wixii qalab ah iyo waraaqaha iyo qalmaanta ilaa iyo makiinadaha wax lagu daabaco iyo rogistooda iyo weliba wax alla wixii shidaala hase ahaatee hadda arrimahaasi oo idhi ururkii ayay ku soo baxay waa tan labaad shirarku waxay ka dhici jireen magaalooyin waaweyn oo ay guddida qabanqaabadu ka heli jirtay baahiyaha hawsha hase ahaatee waxaa timi marxalad uu fadhigii guddida qabanqaabadu noqday meel qarfe ah oo aan innaba laga heli karin wax tashiilaad ah ama fududayn ah sidaa awgeedna ay guddida qabanqaabada ku kallifaysay inay hadba warqad la rogaayo makiinad la hagaajinaayo sad la soo iibsanaayo ama telefoon la diraayo u tagto magaalooyinka waaweyn taasina keentay inay hadba hawsha hakiso waata kaleetee dhulkii SNM awoodda ku lahaa ee weliba dadka SNM-nimada caddaystayna ma aha intii reer qaaxo lagu tilmaami jiray ama lagu sheegi jiray deegaanadii SNM ciidamadii SNM iyo dadweynihii SNM guddi way foondhaafeen iyadu wax kastaba ha ahaatay arrimahaasoo idin ayaa la yimid waayahooda murugsan ee aanu qof garaadin indhaha ka qasin isla dhibaatooyinka iyo duruufaha murugsan ayaa badanaaba keenay ayaanu annagu islaamay in ay xaaladda la xidhiidha hawsha guddida qabanqaabada iyo tan shirweynuhu noqoto tu muran badan iyo fasiraad badan laga sameeyo marka loo eego xaaladihii la midka ahaa ee hore u soo guddida qabanqaabadu iyada oo aan ku dooday inay wax walba sidii ugu habboonayd u qabatay oo isu dhammi ilaah laga helo ayay hubtaa in guddi kasta oo halkeeda joogta ay qabsan lahaayeen waxana qabsada iyo weliba wax kasii weliba itaal waxaanu nasiib ku leena in aanayna qaadin dabaylihii iyo duufaanadiina soo waajay duruufaha anaga jira oo ay ka mid yihiin marka runta la eego in guutooyinka ciidamada oo intooda badan yihiin cawsle la muuseeyey oo leh sumad reereed ama jilb ahaaneed oo xitaa taliska guud ku adkaaday inuu fikrad hagaagsan naga siiyo tirada ay guuto kastaa tahay ka kooban tahay haddii dhinac kale laga eegona xitaa guutooyinka qaarkood la sheegayo in isweydiin ma saaran iyo dhulkii oo kala fogaayay gaadiidkii oo macluum noqday iyo muddadii oo gabaabsi soo noqotay ayaa asmixi waayey in aanu qaababka qaarkood oo dadka qaarkii tabanaayo
aanu u raacno qoondaynta tirada ergooyinka qoondaynta tirada ergooyinka ee ay tahay inay ka yimaadaan meelaha kala duwan waanuna ku quusan in aanu helno tirakoob rasmi ah oo la qaadan karo oo loo qaadan karo tilmaan lagu saleeyo qoondayntaa iyada oodise qaadis iyo jiidis waa isla gudub waxaanu ka duulnay wacyiga iyo xaqiiqda hadda saaxadda ka jirta oo in badan ka duwan tii ka jirtay shirweynihii kan ka horreeyey waxaan la inkiri karin in qaabkan aanu arrintaa u adeegsanin ay qaar siyaabaha qaarkood shidaarad uga deeyeen ilaa iyo xadna qaabkan aanu adeegsanin gudaloolooyin laga helayo waxaanu se islaam in qaabka ay dadka qaarkood xayaysinayaan uu kan ka liidan lahaa haddii xaqiiqda dhabta ay hadda jirta alxamdulilah haddii cidda waxaaraamaynaysa ama daacad ha ka ahaadeen ama yay ka ahaane ay hadda leebabkoodu ku soo abbaaran yihiin oo keliya guddida qabanqaabada waa alxamdulilaahi haddaanay qaybinta ergooyinku fitnad dhex dhigin reero isku degaan ah sida cadowga midnimada SNM jecel yahay iyadoo dhibaatadu taa tahay oo ay weheliso in liisas barbar socdaa meelaha qaarkood ka yimaadeen ayay guddida qabanqaabadu dhowaan codsatay golaha dhexe oo ah hay-adda ururka ugu sarraysa marka laga yimaado shirweynaha inay golaha dhexe isugu yimaado kalfadhi aan caadi ahayn oo go'aan qaadasho leh oo mas-uuliyaddiisa tooska ah ka qaada arrimaha murugsan ee guddida la soo gudbanaaday waxaana guddi ahaa noo farxa in arrimihii halbowlaha ahaa uu golaha dhexe garwaaqsaday isla markaana uu guddida dardaaranno u soo jeediyey iyada oo sidaa ah ayaanu ku dadaalnay in aanu arrimaha qaarkood aad u khafiifin si aanu fursad u helin cadowga raba in shirweynuhu kala dhantaano arrimaha kale ee uu xilku ka saarnaa guddida qabanqaabada waxaa ka mid ahaa dib ugu noqoshada dastuurka iyo barnaamijka siyaasiga ah ee ururka si ay ula socdaan waayaha cusub ee uu la yimi ambaqaadka halganka hubaysan iyo ka siyaasiga in kasta oo laga yaabo in dadka qaarkii aanay wax ahamiyadaba siin qoraalladaa iyaga ah ee tan keli ah ee ay xiisaynayaan tahay yaa la doortay yaase la dooran doona qoraallada laftooda waxay shirweynaha uga baahan yihiin in hodan laga sii dhigo iyada oo la iska ilaalinayo in sharciga qof ama qofaf lagu dhereeriyo
وقفك آد نعبتها هنا شرعي لو أتكيه قفك آد تعشى يا لوجه وأي شرعي قرتنا إلهي ذلك أرنت كلا آيت إلى أن هلكن كحسنا وحوي أنك إيه جديد فلنتا وما أمر كبر كايس وحنو نابنا إن سفي عنا نوض شكل خوشا إلى قبنقابة إلى نسفي عنا نوض شكل إن كسوا وياه دقاره كحنا haddana intii dadaalkooda ay sameeyeen iyadoo isla markaa lagu xisaabtamayo markii la qoondeeyey waxyaabaha loogu talagalay qabanqaabada shirka iyo hadda oo xitaa 3 bilood iyo nus laga joogo in ascaartii iyo sicir bararkii xitaa uu meel ku noqday iyada oo nina jeclaa iyo nina nabcaada ay hawshii noo dhammaatay ayaanu jecelnahay in mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee shirweynaha oo go'aankiisa laga dhowrayo meelo badan oo dunida ah ay yihiin sii adkaynta midnimada u iyo weliba in go'aano wax ku ool ah laga qaato sidii ficil ahaan xoogga loo saari lahaa midaynta halganka hubaysan iyo kan siyaasiga ah ee gebi ahaanba mucaaradka xooga mucaaradka soomaalida dabka sidii loogu dadaali lahaa dhidibo adagna loogu sii yeeli lahaa nabadaynta iyo walaalaynta beelaha Soomaaliyeed ee isku deegaanada iyo sidii si dhab ah oo waaqic ah loo odorasi lahaa oo loo qiimayn lahaa mustaqbalka siyaasadeed ee soo dhow loogana yeelan lahaa mawaaqiif guud oo xubnaha urur iyo taageerayaashuba ka midaysan yihiin mawaaqiftaa oo ka fog isdhiibid iyo jaliska xoornimo labadaba dhinaca ajendaha shirka shirweynaha oo guddida soo diyaarisay waxay noola muuqataa in aynu waqtiga tashiilanno oo in alla intii aynu soo gaabin karno aynu soo gaabinno in xoogga la saaro arrimaha halbowlayaasha in dhaliil iyo isdhaliil ay labaduba jiraan laakiin shirweynahan aan laga dhigan goob lagu kala aargoosto haddii wax la dhaliilayo waa in dhaliilku hawsha ku abbaarnaada ee aanu qofka yool laga dhigan waxay guddida qabanqaabadu u mahadnaqaysa cid alla ciddii hawshan adag ee xasaasiga ah gacan ka siisay waxaanu kale oo u mahad celinayna inta hawshayada u bogsan iyo inta dhaliilsan ee aan jeclayn labadaba weydina mahadsan waxay inoo soo diyaarisay barnaamij siyaasi ah ajandihii shirka dastuurkii oo ay hadilmiyay shaqo ka soo qabteen kolka si ay shaqadoodii u wada dhammaato iminka waxaanu samaynaynaa inaanu idiin qaybinno
shaqadii ay soo qabatay Gudida Qaban-qaabada. Waa mahadsan. gacan head second. Daga. أنا واحد بدونك إيش تسميه أنا لكن أحمد محمود طيب سكندي أحمد محمود قير يا سكن قريني قف باندونية عن مقعي ساف ها سكندي معاك اللي سوى شيء يا gacan baa taagan abiib waxaan soo jeedinayaa inuu noqdo shirkidoonka aadan cabdi xuseen taageero ha istaago qof walba raalliga noqda mid baan ka booday aadan cabdi xuseen aadan cabdi xuseen ha istaago wuu ka cudur daartay waa dhadhowdahay waxay la tahay inaanay jirin nomination kale miyuu jiraa baliikaada hay jawaabina waxay la tahay inaynu bilaabi doono codbixinta kolba magaca dambeeya ayay tahay in lagu bilaabo intaa ka badato kol labaad baa idoon doonaa ku celiya sidaas aawadeed waxaan jecelahay inaynu waqti iskaga lumin si nidaam leh oo aad iyo aad loo bilaaba gacanta ha dhigina haydin daashay magisa gacanta ha dhigina candidatekii labaad tiirka koowaad tirayaasha diyaar ma yihiin imika waa inoo qaydan yihiin waa aragnaa waxaanu doonaynaa imika wixii ka aamusay suga tirilayaashu idinkuna ku biira mid ugu biira tirilayaashu imika haysoo tiri wax yar beeladka ay noqon doontaa kol baynu wada dhammaynaynaa afarta tiirba 130 axmed maxamed qayir oo helay 121 iyo 8 ka aamusay muuse bixi ayaa hadii